sidaan ognahay dalkeena dagaaladii sokeeye kadib waxa waay dhirtiyaa la jaray, dhirtiyaa la xaalufiyey. Marka waxaan u aragnaa marka dhirti maadaama la xaalufinayo, professorkeena wuxuu noo keenay marka fikir ah inaan koonkaabka ama sabuulka aan ka suubino dhuxul. Marka waxaan suubinay tijaabadii koowaad iyo tijaabadii labaad aan suubinay. Maasha Allah waa ku guuleysanay. Tijaabadii koowaad waxaan gubnay 1 kiilo wuxuu ahaa 13 kiilo ahaa. Markii la gubay waxay noqotay 3 kiilo 2 kiilo noqotay. markii aan saas u suubinay kadib ayaan waxyaabahan ku darnay kadib qalab aan u isticmaalnay. marka waxaan ka soo saarnay dhuxul aan u isticmaali karno inaan wax ku karsano. wayna dhacdo oo kuliyadda maamulka kuliyadda aan maalin shaax ugu karinay. dhirtaan la jarayo waxay u noqonay alternative u noqonay koonkaabka, maadaama koonkaabka meelo laga helayo suuqyada, laga helayo meelaha qaar. laakiin dhirtaan la jarayo saameynay keenay. haddii dhirta la jarana waa ognaa waxaa waaye isbeddel cimilaa imaanayo, abaaraa imaanayso, haddadaana ay dalkeena ka taagantahay. ardayda kuliyadda cilmiga beeraha gaar ahaan departmentiga environmentiga ardaydeeda qalin jebinaya ayaa waxay soo bandhigeen experiment cusub oo markii ugu horeysay dalka laga sameeyey, taasoo ah in qashinka ka imaada beeraha sida sabuulka oo kale loo bedeli karo dhuxul. fikraddan runtii waxay ka timid markii ugu horeysay markii aan aragnay dhibaatada dhirta la jarayo ama xaalufka ba'an ee ka jira dalka, in loo helo xal arrintaas. marka si dadka ay u helaan wax alternative energy ama tamar looga maarmi karo, sanadkan ardayda aan supervisor ku ahaa waxaa u soo bandhigay mawduuc ama topic oo ay buuggooda ay ku difaaci karaan oo experiment kaas oo wax weyn ka tari karo dhibaatada xaalufka iyo dhuxusha tirada badan ee dadka isticmaalayaan, ayagoo adeegsanaya sabuulka la tuuray inay ka sameeyaan dhuxul, taasoo yareynayso xaalufka dalka ka jira.